Somalia, Somalia, Puntland, Puntland. doorashadan gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda sida odayaasha aqoon-yahanada haweenka iyo sidoo kale agaasimaha amniga dowladda Puntland iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Victoria waxaana tartamay laba murashax inkastoo Yaxye oo ka mid ah tartamayaasha uu u tanasulay Siciid Jiinle oo noqday gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Puntland. Hawl aad u ballaaran baa isaarteen. waa hawl u baahan qalbi saliima iyo daacadnimo qof aan daacad ahayn ummadda u dhaxayn karinna ma qaban karo marka guul baan rajaynayaa ilaahay ana hay fududeeyo adinkana garab istaag ilaa culays baa isaartay culayska bas halle waana maasantiin magacaygu waa Yaxye Ismaaciil Cabdullaahi waxaan u tanaasulay markii aan asxaabtaydii la tashtay waxa ii soo baxday inaan waqti dambe iyo jaanis dambe aan siiyo jaaniskayga dambe aan haddana u tanaasulo waqtiga u dhowro ummadda reer Puntland meesha iskugu timid gudoomiyaha cusub aan la shaqeyno doonaynaa haddii ilaahay idmo inaad danta dadka iyagaasoo dhan ama wiil ha noqoto ama borwe ha noqoto ama in kale ha noqoto inaad u dhibaatowdo dantayada inaad hormariso mar walba ama tacliin ha noqoto waddan shishaan joognaa mar walba dantayada inaad hormariso taadana gadaal dhigto runtii doorashada maanta dhacday waxay u dhacday si aad iyo aad u sarraysa waa midii aanu filaynay waa midii aanu 1 sano iyo 3 bilood ka hor aanu lahayn war it's simple doorasho keena ha dhamaateen waa mas'uul aan igmanay waxaan u hambalyeeynaya Siciid Jiinle aad baan ugu mahadnayaa hawsha weyn oo qabtay Siciid Jiinle guulayso ilaahay abaarta naga kiciyo colaadana Allah naga kiciyo raganimadeedana waa inaan yeelanaa reer Australia haday tahay maadaama doorasho runtii aad u qiimo badan halkan ka dhacday oo maanta gudoomiyaha halkan lagu doortay jaaliyadda Puntland waxaan rabaa inaan dhammaantiin idiin sheego mar haddii qofku inta cod gacanta taagay oo uu qof doortay qof kale ma dooran karo nidaamka sharciga waddanka caalamka waa sidaas weeye waxa aynu doorannay si officially caawa Siciid Jiinle inuu inoo noqdo gudoomiyaha Puntland diaspora Australia waxaan sharaf weyn ii ah inaan caaway aan idinkala soo qayb galo caleemasaarkan Siciid Jiinle uu ku noqonayo gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Australia waa arrin runtii lagu farxo waa arrin muhiim ah in aad doorataan qof maaragtay wax fiican idiin tari kara magaciina masali kara bulshadiina wax u qaban kara waxa weeye anoo ku hadlaya guddiga doorashada waa aqbalay rag iyo dumarba haddaba ilaahay waxaan ugu rajaynayaa ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay u fududeeyo codka lagu doortay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Puntland ayaa ahaa mid gacantaag ah halka gacantu ay taageen ku dhawaad 150 xubnood inkastoo mid ka mid ah uu ka aamusay arinta meesha ka dhacday ayaan ku faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa la Siciid xil adag baa qaatay nin xil qaaday eedkaad waxaa laga rabaa xilka ay qaatay dhamaystirkiisa insha Allah Siciid doorashadu si qurux badan bay u dhacday dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland baa ka soo qayb galay waxay noqotay doorasho loo dhan yahay isla marhaantaas ummadda reer Puntland waxay dooratay mas'uul aan oran karno shaqadiisa iyo waxqabadkiisa hore baa loo soo tijaabiyey waxaan Siciid Jiinle kula dardaarmayaa in shaqada loo igmaday si cadaalad ah doorashada halkan ka dhacday ayaa ku soo beegmaysa xilli deegaamada Puntland ay ku habsatay abaar aad u daran taas oo loogu fadhiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Puntland ee ku dhaqan guud ahaan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dadkaasi gargaarkii la gaarsiin lahaa hadda xilli abaara ku jirnaa dalkii waxaan taaganahay inaan maartay
istaraatiijiyadda koowaad aan ka bilaabay inay tahay waa arrimaha abaaraha inkastoo hadda meelaha qaarkood roobka dee ma wada dhammaan roobabka meelaha ka jira waxaan rabnaa insha allah inaan intaan jaaliyaddu waxay ka qaban karta ka qabato horena waa u dirnay dhowaan waxaan dirnay lacag oo abaaraha ah haddeerna sidoo kale waa u taagannaa wax kastoo yimaada duruufaha qalabsan ay keenaan ummaddeena inaan u qabanno istaraatiijiyadda labaad oo kale ah waa midda wakhtiga fog oo ah inaan wixii horumarin puntland ee mustaqbalka aan qaban karno u qabanno sida horumarinta isbitaalaadka waxbarashada intii karaan keena jaaliyadda u maqnaan shiile guul iyo hambalyo iyo bogaadin ayaan ugu bishaaraynayaa waa wiilaan jeclahay ilaahay idankiis garabkiisa allaha galo haddaba guddoomiyaha jaaliyadda cusub ee puntland siciid shiinle ayaa sheegay in arrintaasi uu ahmiyadda siin doono ibraahim cumar baafe wararka universal magaalada melbourne dalka australia